Cusbitaalka Weyn ee magaalada Hargeysa waxaa la keenay 48 qof oo dhaawac ka soo gaaray kadib markii dab qabsaday dugsi ay wax ku baranayeen waxaana dhaawacyadooda la tacaalaya howlwadeenada caafimaadka cusbitaalka Weyn ee magaalada Hargeysa xarunta guud ee taliska ciidamada dadamiska Somaliland waxaa warbaahinta si wada jir ah ugu hadlay taliyaha ciidamada dadamiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili barsaabka gobolka Murudijeex Jaamac Xaaji Axmed duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Caydi solteko kana warbixiya sida ay wax u dhaceen waxaana hadaladoodii kamid ahaa dabka maanta dhacay dab wax ka dhacay iskuulka daar Dacwa oo 26 June ku yaala marka uu dabku dhacay 250 arday baa dhiganay fooq buu ahaa maxaa la yiraahdaa iskuulku marka ardaydu xagga sare ku wada maqnaayeen albaabka marka laga soo galo salaanka halkiisa hoose lagu ururiyay maxaa warqado iyo furaashyo iyo warqado aad u fara badan halkaas gubatay marka qiiqii bad sare ugu kacay ardaydii marka ardaydii badankoodu way nafqabatoobeen wala isku wareeray wala sarki waayay markii la soo sheegay markii waanu tagnay dabkii waan ka kontaroolnay oo ka baqtinay hase yeeshee maadaama caruur ahaayeen iyo macallimiintii khalkhale oo arki waayay waxba ayaa noqotay marka in meelkii laga soo baxo taasina sharciga guriyaha waa ka mamnuuc in dad inta laga meel soo geeyo albaabkii laga wada baxo dhinac kaliya waxa la rabay laba albaab ilaa saddex albaab laga ordi karo marka almuhiim 250 arday iyo dhowr iyo 10 macallin waxa dhaawacmay 48 dhakhtarkan u daad gureynay oo degdeg u geenay waxa dhacay dalabta shil dab ah oo madrasada uu ka warramay taliyaha ciidanka dadamisku waa 250 ay ku jireen arday wax ku dhiganaysay ayaa dabkaasi ka kacay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa hadii aan dhimasho jirin waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka dadamiska qaranka iyo howlwadeenada booliiska ee la shaqeynayay oo mar walba si naftooda huraanimo ah uga hawl gala meelaha dabku ka dhaco dadweynahana iyo shirkadaha dhismayaasha waxaanu leenahay dhismayaasha albaabka qura ama jaranjarada kaliya leh dhowrka dabaqa waxay halis gelinayaan marka sidaas oo kala dab dhaco bulshada marka shirkadaha dhismuhu waa inay ka feejignaadaan in guriga inta laga dhowrka dabaqa ee 300 qof ay ku baranayaan oo jaranjaro kaliya yeesho sida taliyada dabdamisku sheegayna marka dab dhaco kulay dadka argagax baa ku dhaca laakiin waxaynu leenahay ciidan dabdamisa oo heegana mar walba runtii dhibaato dhacday maanta dhibaatadaas oo ah inay ka dhacday sidii taliyuhu inoo sheegay Dacwa oo ay dhiganayeen 250 haweena oo uu hoosta dab ka soo qabsaday run ahaantii wixii digniinaha iyo wixii xaaladaha taliyaha ka warbixiyay waxaan leenahay intii ku dhaawacantay alla caafimaad ha siiyo oo 48 qof ah waxaan dadweynaha uga digaynaa cusbitaalka guud oo uu yaalo dhaawici buuq badan baa ka jira xaalad caafimaadna way jirtaa waxaan leenahay dadweynaha marka wax dhacaan qof walba ha is oran soo eego meesha waxa ka jira in xaaladda caafimaadkana la ilaaliyo dhakhaatiirta caafimaadka iyo howlwadeenada caafimaadkana loo fududeeyo inay hawshooda qabsadaan Cabdi Karim Ciise Cabdullaahi Cabdi Karim Staji